in the accounting and measured in monetary terms. Financial transaction waa xaalad dhaqaale oo dhacda saameynna ku leh asadka shirkadda iyo equity-ga shirkaddu ay leedahay kaasoo la xiriira inta accounting and measured lagu cabirayo of monetary terms lagu cabirayo. Similar types of transaction ka uu kala baxo waxa ka mid ah saddexda hab oo mara expenditure cycle, conversion cycle iyo revenue cycle. xiriirka ka dhaxeeya relationship between transaction cycles waxyaalaha ay maraan halkan waa ujeedaa waa expenditure cycle-kii, halkan waa conversion cycle-kii isku xirayay, halkanna waa review-gii. Expenditure cycle-ka waxaa ka mid ah waa subsystem ka mid ah waa purchase-kii ama accounting payable-kii, cash disbursement-kii, payroll-adii, fixed asset-kii oo waxyaalihii lagu bixin jiray oo dhan waay. halkan cash buu marayaa, physical plant-kii, material-kii, labor-kii, waxyaalihii la mid oo dhan. Conversion cycle waa production kaasoo planning and control of the cost accounting waay. waxaa lagu controlayaa laguna ilaalinayaa bit by bit of production of cost accounting. waxaa gelaya unit of material labor-ka waxaa gelaya wey. halka waa finish of goods-kii, halkanna waa customer-kii oo badeecadda ay gaarayso. finish of goods cash-kii, revenue waa sales of order, processing of the cash receipt waa. badeecadda waanu soo samaynay, kharashkii iyo wixii ku bixi lahaa dhan waa ablabgaraynay, waanu dhammaynay. maxaan u baahannahay inaynu customer-kii gaarsiino oo macaamiisha waa relation of the customer-ka dhex maraya. each cycle has two primary substances. mid walba muxuu leeyahay two primary substances uu leeyahay. expenditure cycle-ku waa timeline between u dhaxaya two due to credit wax la yiraahdo waa debit iyo credit relation with supplier-ka ah. physical commitment iyo financial commitment. physical commitment waa equation of goods ka dhex maraya wey. financial commitment waa cash disbursement of the supplier. good. طيب conversion cycle labo asna mara the primary of goals the production system iyo the cost accounting system waa. the production system ka maxaa ka mid ah planning inuu dedejiyo, jadwalka inuu sameeyo, controlling inuu control of the physical product-gii through kaasoo manufacture process-kii marayay. accounting cost accounting system na maxaa waay monitoring the follow of the cost information related of production-ka la xiriir ee lagu controlo lagu ilaaliyo waxyaalaha unit of production-ka lagu galayo oo physical-ka. revenue cycle-ka maxaa waa timeline between the two duty of credit u dhaxeeya. physical commitment sida sales order of processing, financial commitment na maxaa ka mid ah cash receipt oo kale. manual system of account of recording. manual system of recording maxaa ka mid ah saddex waa u qaybsamaya. waa source of document kaasoo loo isticmaalo to use it to capture in lagu qabto and formalizing transaction data to need loo baahan yahay for transaction processing in lagu sameeyo. waa manual source of documentiga xagee laga helayo ilaha dhaqaalaha ama ilaha xogaha meesha laga helayo si loo qabto loona format gareeyo formalizing lagu sameeyo transaction data si loo ilaaliyo to need processing inay maro. maxaa ka mid ah product document the result of the transaction processing ka soo baxa source-gii waa la helay, ilaa xogaha waa la helay, waxbaa la isku dawariday, transaction-nadu waa la qaaday. product of document waa the result of the transaction processing waa. town running by the document isna muxuu yahay waa product document of one system to become muxuu noqonaya source of document for another system. waa product of document kaasoo one system that becomes muxuu noqonaya source of document of another system kala waa. good. طيب manual system recording kii waa socda. journalistku waa record of journalogical entry labadaas u qaybsamo waa special journalist iyo general journal. special journalistic waa specific classes qaybo gooni ah baa loogu talagal of the for transaction ah dadkaasoo accuracy wuxuu ka dhacay in higher frequency. journalist waa shaqada ugu badan oo accounting computerized accounting-ka laga qabto waa journalist. aad waa inuu qofku inta badan ugu celceliyaa journalist. general journal
waa non requiring frequent and small transaction inta badan uu ka dhaco. Ledger marka journalka inta badan akoomada waxay maraan oo kale marka journalka lagu soo xareeyo ba waxa loo soo wareejiyaa waxa la yiraahdo ledger. Ledgerku waa book of financial accounting, waa book kamida financial accounting ka lagu xisaabiyo. Marka soo lagu qaybsamayo general ledger iyo subsidiary ledger. General ledger waa show wuxuu ku tusanayaa activity for the each accountant. Account kasta list of the chart of account ku jira. General ledger baa la yiraahdaa waxa uu ku tusanayaa activity shaqo walba oo ka dhacda account list of another of charge of accounting as well. Subsidiary ledger na waa show wuxuu ku tusanayaa detail for the each accounting type code. Account subsidiary macnaha qaybo kamid ah soo hoostaga sida bankiga dheel silsilada waxyaalaha soo hoostaga oo kale. Good. Follow of information from the economic event to the general ledger. Customer ki waa kana sales buu sameeyay, sales order journal ki baa la geliyay, sales journal ki baa la geliyay, waa la post gareeyay, general ledger ki waa loo dalbay. Dabadna maxay noqonayaa account receivable subsidiary of general ledger. Critical principle of the ledger to general ledger waa qofkii macaamiishii transaction kaas u maraya wuxuu noqonayaa waa cycle waa sales order journal entry waa la gelinayaa, sales journal ki general ledger ki waa loo wareejinayaa. Cycle waa business cycle waa account recording computerized based accounting ki waxyaalihi uu marayay basic cycle ki way uma jeedo. Number 1 halkan uu ka bilaabanayaa waa kana audit trial account general ledger, control of accounting, account receivable, inventory, cost according, saleska, soldiga waxyaalahaas oo dhan buu soo